Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see. Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see. She's my pillow when I cry. She holds me inside when I can no longer fight. Oya is my light at night to guide me when I can't see right. Allahayow hooyadeen hoy jannada ka see. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Thomas Edison guriga soo galay. Wuxuu warqad u dhiibay hooyadii waxaana ku yiri maalinkayga ayaa warqadan ii soo dhiibay. Wuxuu ii sheegay inaan u dhiibo hooyaday oo kaliya oo aanan furin warqada. kolkii hooyadii warqada kala furtay waxay indhaheeda ka yimid ilmo badan. waxay warqada kor ugu akhrisay wiilkeega. wiilkaagu waa aqbari aad u maskax badan. iskuulkan aad buu u yaryahay mana hayno macallimiin sare oo tababari kara. fadlan adiga waxba wuxuu hindisay oo adduunkan ku soo kordhiyay waxyaabo badan waxaana ka mid ah nalka aan ilaa maanta aan isticmaalno. wuxuu noqday mid ka mid ah hindisiyaasha dadka wax cusub soo saara ee ugu sareeya caalamka. sanado badan kadib kolkii Edison hooyadii dhimatay ayuu maalin gurigii ku noqday. wuxuuna eegay alaabihii hore ee reerku lahaa. wuxuu arkay warqad isku laaban oo qaanad miis ku jirta. waa warqadii macalinku u soo dhiibay. wuxuu kala furay. waxaa ku qornaa wiilkaagu maskaxda ayuu ka jiran yahay uuna fahmo daran yahay oo ogolaamayno inuu iskuulkeena sii dhigto. Edison wuxuu eegay saacado badan wuxuuna qoray xusuus qoraalkiisa. Thomas Edison wuxuu ahaa ilmo maskaxda ka jiran oo damiin ah kaasi oo hooyo haliyay darteed ku noqday aqbariga qarnigan. hooyadii warqadda sida ay u tahay uma aysan ahayn. waxayna go'aansatay inay dhiirigeliso wiilkeeda intii ay niyad jebin lahayd. hadalkii hooyadii uu aaminay iyo dadaalkii uu la yimid ayuu ku noqday aqbari. hindise aad u maskax badan. marnaba ha ka quusan noloshaada. si kastoo lagu niyad jabiyo ama lagugu tilmaamo qof aan bedel ama horumar samayn karin, ha niyad jabin ama rajo dhigin. waxa ugu weyn ee aad samayn karto ama aad noqon karto waa wixii dadku ku odhan jireen ama aaminsanaayeen inaadan noqon karin. hooyo kasta waa haliyey waa